ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa howlgal amaanka lagu adkeynayo waxay ka sameeyeen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo howlgalkaasi lagu soo qabtay dad looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed ee ugus wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warama magaalada Beledweyne Ibraahim Maxamed Geedi ayaa inoo soo diray warbixinta warkaas. howlgalkan oo ay sameeyeen ciidamada dawladda kana sameeyeen xaafadda Holwadaag ee magaalada Beledweyne ayaa waxa ay qayb ka sugidda dhinaca ammaanka kadib markii maalmihii ugu dambeysay kooxda gumaadka dadka shacabka ah dil u geysteen dad deegaanka ahaa. aroortii hore saaka ayaa ciidamada dawladda waxay xaafadda Holwadaag ee degmada Beledweyne howlgal ku soo qabteen dad ku dhow 100 qof oo qaarkood looga shakisan yahay inay qayb ka yihiin kuwa ammaanka wax u dhima. gudoomiyaha degmada Beledweyne Macalin Ismaan Khalaaf oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in howlgalkan uu ka duwan yahay kuwii hore dadka la soo qabtayna ay ka mid yihiin rag ganacsato ah oo looga shakiyay inay taakulayaan kooxda. hawshaasi xali waxa la diyaariyay howlgal ballaaran oo lagu sugayo ammaankan degmada Beledweyne oo lagu sugayo ayaan waxaan galnay howlgalkaasi waxa lagu soo guuleystay qaybihii la shaqeynayay al-shabaab uu joogay magaalada degmada Beledweyne gudaheeda informationada iyo qaabka howlahaas uu jiray hadii ay ahaa lahayn ganacsato hadii ay ahaa lahayn xagga kaleento dhalinyarada kuwa hadda la soo qabtay waxaan saari doonaa maxkamadda markii kiiskaas oo soo cadeeyno ayaa la saari doonaa hadii la raali ka dhigo. gudoomiye ku-xigeenka dhinacyada amniga iyo siyaasadda ee gobolkan Hiiraan Maxamed Ibraahim ayaa waxa uu sheegay in howlgalkan uu noqon doono mid joogto ah si looga sifeeyo kooxda gumaadka dadka shacabka ah guud ahaan gobolka Hiiraan. howlgalladaas waxay noqon doonaan kuwa sii socon doona aan joogsanin maalmahan daba soo badanaya dilalkii waxaan u maleynay in anaga gaabinay howlgalladeena ka gaabinay haddana waxaan rajaynaynaa in si laba hadii alla yiraahdo insha Allah ta'ala muddooyinkan waxa socday ciidamo soo degayo oo walaalaha soo degayo oo waxa jiray howlgallo inay sameeyaan dhinacsanaa marka waxay isleeyihiin nimankii nabadiidka ahaa inay fashiliyaan howlgalladaas si aan loo gelin magaalada dhexdeeda carqalado ka sameeyo sidaas keentay in hadda magaalada dhexdeeda baaritaan loo galo oo kadib hay'adaha ii sheeg howlgalladaas iyo loogu gol leeyahay nimanka waxa nabadiidka ee magaalada qasay sidii lagu soo qaban lahayd oo loo baari lahayd xaafadaha afarta xaafadood ee magaalada